dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa mar kale shuruud hordhigay ka qaybgalka shirka uu ku baaqay in ay ka soo qaybgalaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo qorshihiisu yahay in uu dhaco 4 Maarso 2021 shuruudda ugu weyn ay soo bandhigeen madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo xiriir wanaagsan ka dhaxeeyo ayaa ah dhinaca amniga gaar ahaan goobta lagu qabanayo shirkaas oo ay muujiyeen in ay u heelan yihiin ka qaybgalkiisa si cad uma aysan diidin ka qaybgalka kulanka madaxweynaha balse waxa ay ku maldahayaan diidmo dadban sida in ay soo bandhigayaan shuruudo kala duwan oo haddii loo fuliyo ku xaadiri karaan gogosha lagu dhameystirayo heshiiska doorashooyinka Puntland ayaa qoraal ay xalay soo saartay ku tiri dowlad goboleedka Puntland ee Soomaaliyeed waxay walaac ka muujinaysaa in madaxweynaha mudxuleedkiisu uu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu markasta soo saarayo qoraallo qaadaya tilaabooyin carqaladeynaya dadaalada xalka loogu raadinayo caqabadaha hortaagan geedi socodka qabsoomida doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Puntland ayaa taa beddelkeeda sheegtay inay taageerayso dadaalada ay wadaan ra'iisul wasaaraha xilka sii haya iyo midowga musharaxiinta dowlad goboleedka Puntland waxay u aragtaa dadaalada ay wadaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo midowga musharaxiinta kuwa u gogol xaaraya jawi ay ku qabsoomi karaan shirar looga wada hadlayo qabsoomida doorashada loo dhan yahay heshiiska lagu yahay ayaa lagu yiri qoraalka Puntland waxay kaloo ay sheegtay inay markasta diyaar u tahay ka qaybgalka shirarka xalka loogu raadinayo qabsoomida doorashada heshiis lagu yahay oo ku qotonta heshiiskii 17 September 2020 waxay dowlad goboleedka Puntland ay soo jeedinaysaa in shirarka ku dhacaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxayna ka filaysaa xafiiska qaramada midoobay iyo AMISOM in ay diyaariyaan goobtii amniga shirarka dhankiisa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe qoraal kooban uu bartiisa uu soo dhigay ayaa waxa uu ku shaaciyay mowqifkiisa ku aadan shirka kale oo madaxweynaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada gobolka Banaadir ay isugu imaanayaan waxaana uu ku xiray 2 shuruudood waxa uu sheegay in Jubbaland ay mar walba diyaar u tahay ka qaybgalka shirka ka dhaca meel ammaankeeda lagu kalsoonaan karo in guddiga shirkaas uu ahaado heshiiskii ay madaxda gaareen 17 September sidoo kale qoraalka oo lagu baahiyay barta Twitter-ka ee madaxweynaha Jubbaland ayaa lagu soo dhaweeyay oo lagu bogaadiyay wada hadallada ra'iisul wasaare Rooble iyo midowga musharaxiinta dowlad goboleedka Jubbaland waxay dhiirigelinaysaa qabtaana in la tamantaabiyo waqtiga la siiyo wada hadalka u dhaxeeya ra'iisul wasaare Rooble iyo waliba midowga musharaxiinta waxay sidoo kale diyaar u tahay ka qaybgalka shir ka dhaca meel amnigeeda lagu kalsoon yahay gundhigiisuna yahay heshiiskii 17 September ayaa lagu yiri qoraalka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo Saciid Deni waxay xubno ka ahaayeen madaxda federaalka iyo waliba kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee saxiixay heshiiskii 17 September 2020 kaasoo ka dhacay magaalada Muqdisho sidoo kale waxay soo dirsadeen wakiilo ugu qayb gashay kulankii Baydhabo ka dhacay 15 iyo 16 Febraayo ee sanadan aynu ku guda jirno 2021 Deni Axmed Madoobe ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay wada xaajood siyaasadeed la lahaa wakiilada xubnaha beesha caalamka oo ay ugu arinsanayeen sidii loo dhameystiri lahaa heshiiska lagu saldhigayo doorashooyinka dalka shir waliba oo loogu baaqay waxay soo hordhigeen shuruudo kala duwan oo la jaan qaadaya arrimaha markaas laga wada hadlayo waxaana ay ugu dambeyn shirkii Dhuusamareeb 4 oo arinta ugu weyn ee lagu kala tagay ahayd arinta gobolka Gedo lamana oga halka uu ku dambeyn doono shirkan uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo iyo inay ka qaybgalayaan madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland walow halka qaarka kale ay iyagu ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho Cabdifataax Muumin 5TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel
abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka.